بسم الله ما أنت أي تهاي مالين أربعة تاريخنا يكون بيجان تهاي تضري لواتنك بس شرنا الله وده كون يلواتنك وحن كذا الله يناشر كنا الجرائد ونقول سابسين هاي وأيضا دنبه وحاس سعودي براه بالشدة كالسعودي ورا ترابغن ومحل هذا لقاه اللي هي شبلان قلت كواد واحد اللي هذا شبلان ومعموله وما أنت لا قنصي هاي مشرع إنساس لو فهمه ونكسن وحاكله عن أدو تاجر سنون سود ويننا هذا الكيكا صيري وكيل كجار كه ميدو أفريقيا يا مدح هول جلنت أميسوم فرانسيسكو مديارا أسقو هذا الكيسو كوبايس جريء حالة رسمية كتير تجبلان وحاد دجن قبيلات تربضن الصومالية وكلا دوان حنو باقينا دولة الفدرالية الصومالية إني دجسوا دبوجسين تجبلان سي أي أهلان معمول لودن يهاي وحاكلون راعينا إننا ونسود ويننا وأنكو تاجرسنا دولة ده ساعد والبا حبك أي وحوضه يقابك أي وحوجران وحنلنا هاي نمانك حمر كهالله سنة الرذا له وكمل هاي جنرال فرتاج أنا أقول ما قرنا أيو سيستم كوكوجي ميده هراء سيستم خلدم بوها ما نكون مثلي كلام غير جدو أصلا أي تهاي ديجان دورشة ديسا جوال كجدو كنا مثل هاي ديجان كان دي بدن باكر دعاي فتهذا كان دعاي عذر رافتشرة وحاول نكسنان لهاي هذا الكردين تاعه بين أبور تاعه اللغو شقينا هاي ودناها السياسات جوجعان dhibaatayna hayo ama lagu naafaynayo nidaamka dawliga ah intii uu abaabuli lahaa in bulshadii dooratay uu ku matalahayay oo xuquuqdooda uu ku qaadanayo mushaarka in uu dhibaatadooda oga hadlo inuu soo booqdo hal maalinna ma aysan dhicin in uu ka hadlo wax dhibaato ah oo ka dhacday gobolka Gedo oo aan ku celcelinaynaa ka maamulahan aniga oo ku hadlaya afka maamulka degmada Doolow ahna gudoomiyaha degmada Doolow waxaan leeyahay dawladda federaalka ee Soomaaliyeed waxyaalaha marin habaabinta ah ee la abaabulahayo dhagna jalaqayaan loo siin hana si sax ah loo wajaho waxaan ugu baaqayaa dawladda senatarka iyo cid kaste oo falka ay hadda ka wadaan ama dhibaatada iyo abaabulka ay ka wadaan Muqdisho ku lug leh in ay sharciga wajahaan xeerka iyo shuruucda dalka u deganna in la marsiiyo dhibaatadii uu ka geystay Gedo ama guud ahaan Jubbaland ayaan wali xalin la'nahay oo aan wali u la'nahay maarayn nuguma matalo ma aha siyaasi ka soo jeedo deegaanka ee waxaan dhihi karnaa waa nin dangooni ah u shaqeynayo kursigu ku fadhiyana uga faa'iideysanayo iyo xasaanada uu leeyahay dhibaataynta reer Gedo waxaan kale oo aan rabaa in aan xuso nimanka isku sheegay siyaasiyiinta reer Jubbaland ee dalalka dariska ah ku shiray leh masiirka Jubbaland annaga ayaa waxna laga weydiinayaa dee Jubbaland waa la isoogahay afar nin oo ilmaadeer oo qol isku soo xirtay waaye mana ku matali karaan bulshada reer Jubbaland shirka asaga ay sheegeen mana dhihi kara shir waa kulan rag siyaasiyiin oo ilmaadeer ah oo mugdi soo kala dhexgalay haddana xal u helay wixii ayaga dhex yaalay way danooda way ka hadli karaan wayna annagu dhihi mayno maxaad u kulanteen iyo maxay u dhacday laakiin waxaan leenahay matalaad ma aha